بسم الله. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، وبعد. إلهي سبحانه وتعالى wuxuu adoomadiisa u jideeyey guurku waa nimco, waa cibaado. waxaa laga helaa Ilaahay subxaanahu watacaala qofku siinayo awlaad qurux badan, guriga ka buuxinaya farxad, berrina waalidkood u noqonaya muciin. hadduu dhintona Ilaahay subxaanahu watacaala hadduu uga dhigo awlaad baariyana u ducaynaya. ilmuhuna adduunka keliya faa'iidadooda ma ahane, Ilaahay subxaanahu watacaala qofku ugu deeqo awlaad baariya ilaa iyo aakhiro wuu daba soconaya wanaagooda iyo fadligoodu. guurku wanaag oo dhan isagaa iska leh. Ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu siiyey ummadiisa meel ay ku gudato baahideeda jinsi ahaan, iyadoo weliba ajar loo qorayo. xadiis baa lahaa nabiga calayhi salaatu wasalaam, xitaa luqmadda aad u gelinaysid xaaskaaga afka waxa lagaaga qorayaa ajar. sidoo kaleeto nabiga calayhi salaatu wasalaam markii la weydiiyey yaa ajar badan, diinaar aad ku bixisid ilaahay dartiis, jihaad fii sabiilillaah, diinaar aad sadaqaysatid, diinaar aad ahalkaaga siisid, iyo diinaar aad ku xoraysid raqaba, qof bini aadana addoon ah. nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi waxaa ugu ajar badan diinaarka aad ku nafaqaysid ehelkaaga. lacagta aad bixinaysid oo reerkaaga siinaysid ajar baa lagaaga qorayaa. sidoo kale gabadha dherigay karinayso waxaa looga qorayaa ajar. guriga ay hagaajinayso, caruurta ay korinayso, sawjka ay qancinayso, intaba waxaa looga qorayaa ajar. ilaahay subxaanahu watacaalana ma dayaco ajarka kuwa muxsiniinta ah. intaas kadib, waxa wanaagsan qofku markuu guursanayo inuu garanayo macnaha guur. aniga shakhsiyan gabar ahaan markii la guursanayo waa in aan garanayo waxa xaq aan ku leeyahay ninka i guursanaya. sidoo kalena waa inaan garanayo xaqa uu igu leeyahay isagu oo la iga doonayay in aan ka soo baxo. laakiin haddii aan guursado anoo da'yar, madax isugu tuuro guurka, waalidkii dhalay aysan weligood dhihin mas-uuliyadda guurku waa sidaas, noloshaasi ma ahaanayso mid sii soconaysa. sababtuna waxay tahay ma garanayo wixii aan doonayay iyo wixii layga doonayay midna. waxaan idinla wadaagayaa qiso yar. gabar baa ka sheekeynaysa qisadeeda. waxay leedahay waxaa dhimatay hooyaday anoo da'yar, kadibna noloshii ayaa igu adkaatay. waxaan la noolaa ayay tiri aabbahay xaaskiisa, ama guriga aabbahay ayaan ku noolaa. eedaday ama hooyadeydii labaad may noqon sidii laga rabay. kama filaynin inay noqoto sida hooyaday, laakiin calal aqal umaysan soo dhowaanin, ama sida ilmaheedoo kale ilamay tacaamulin. aad bay ii dhibaataysay, aadna way noo kala fogaysay aniga aabbahay. aabena wuxuu maqli jiray waxa ay eedo dhahdo oo keliya. waagii hore aan iska yaraa waan iskaga dulqaadan jiray, walow noloshaydii ay ka dhuntay waxyaabo badan. aan noqday qof dismoorala, waxbarashada ku dadaali karin, imtixaanada keena natiijooyin hoose, aan lahayn rakisaad iyo wax fahmid. markuu iskuulka joogo waxaan ahaa maqana jooga. waxaan ka fikiri jiray markaan iskuulka joogo ayay tiri dhibaatada guriga iga sugaysa. intaas kadib waan weynaaday, waxaan u baahday, waxaan fiiriyay hareerahayga iyo waxay gabdhuhu haystaan. anigu ma haysto kareen, ma haysto cadar, ma haysto wax laysku qurxiyo, ma haysto dhar badan oo qurux badan, mana haysto waxyaabo baahiyo khaas ah ay gabdhuhu u baahan yihiin. waxaan ku fikiray maxaad kaga bixi kartaa noloshaan. waxaa keliya ii soo baxayaa wuxuu ahaa in aan guursado. aad baan u da'yaraa, ismaanan sii weydiin guur muxuu yahay, yaad guursanaysaa. laakiin waxa keliya ii muuqatay ayaa ahayd guri qurux badan oo laga soo baxayo. waxay leedahay hadda guriga ismaan weydiinin ayay tiri gudihiisa waxa kusii jira. ma farxad baa ka jirta, ma mashaakil baa ka jirta. maan ogeyn bay tiri gurigu inuu yeelan karo qiso, mar farxad, mar murugo, mar buuq,
mar inaa weydid wixii aa u baahnayd ama ha laguu diido ama duruufta ha kaa xarinto. laakiin waxa keliya sawirka keliyaan iska siiyey guurka ayaa ahaa wixii aan anigu doonayay inaan helayo, balse sidaan doonayay may dhicin. markaan guursaday kadib waxaa igu bariyey waxaana ogaaday in wixii aan kasoo cararayay ay ahaayeen wax basiid ah. haddii aan ka helay meeshii aan usoo cararayayna iyo gurigii aan degay iyo guurkii iyo ninkayga haddaan ka helay baahiyihii yaryara markii aan tabayay oo laga yaabo si kale haddii aan u raadin lahaa inaan heli lahaa, ayaa waxa igu soo baxay baahiye ka waaweyn. waxaan ogaaday inaan hadda u baahanahay baahiye kasii badan kuwii hore, laakiin aanan helayn. halkee ka doonaa? ma guri kale aan u cararaa intaan ka dumiyo? ma ka helayaa? muxuu noqon doonaa qofka aan guursanayo dabeecad ahaan? tolow su-aalo badan baan isweydiiyey. dib haddayba dhacdo inaad gurigan ka baxdid, xagee noqon karaa guriga kalaa geli kartid? waxaan ku fikiraya ayay tiri mashaakilkan ku jiro inuu awalna iga saari kara nin, haddana weli waxaan sii haystaa fikirkii khaldanaa oo ahaa guur uun ayaad uga bixi kartaa. ma ankirsani ayay tiri guurku inuu yahay nimco, inuu yahay cifa, inuu yahay meel aad baahidaada ku gudanaysid, laakiin waa markuu yahay dhinaca wanaagsan mid u socda. mana diidani ayay tiri khilaaf inuu imaan karo nolosha, oo noloshu dee waa khilaaf. laba qof oo aan isku meel kusoo korin isna garanayn markay isu yimaadaan dabcan way iskhilaafayaan, way isqabanayaan, way iska hor imaanayaan, laakiin haddana noloshu kuma wanaagsana markasta buuq iyo qayle inay ku jirto ayay tiri. waxay tiri waxaan noqday hooyo anoo da-yar oon garanaynin si ilmo dhabta loo saaro. waa isku rafaadna ilmihii, man haysan ayay tiri hooyo i tawjiihisa oo igu dhahda ilmaha saa u qabo, saas u sii naaska, saas dhe. waxaan noqday way tiri hooyo da-yar oo maamulanaysa guri, mashaakilna uga hooseeyo, hooyo u noqonaysa ilmo yaryar oo aysan garanaynin xitaa say u korin lahayd. waxaan noqday ayay tiri mid dulmida nafteeda markii hore, haddana dulmida caruurteeda, sababtoo ah aan waxba u haynin, aan jacayl siin karin, aan ixtiraam siin karin. dhibaato badan waa isla koraynay ayay tiri. aslan aniga caruurteydu dhibaato badan ayaan kala marnay. 25 sano maalintaan jiray ayaan laysoo furay, anoon wejina ku lahayn guriga aabbahay aan kusoo noqon karin, sababtoo ah weli waxaa iiga sii horeysa maamadii dhibta badnayd oo nolosha igu adkaysay, sababna u ahayd inaan anigu guursado. waxay tiri waxaan haystaa maantay 4 caruura, waxaana ahay 25 jir. nolosha iyo mashaakilkeeda waxaan ka tegay bay tiri dumarnimo. hadday ahaan lahayd quruxdan shalay u ordayay inaan helo, hadday ahaan lahayd wax kasta oo gabari u baahan tahay, waxaan dib u milicsaday in aan shalay khaldanaa. laakiin markasta waxaan ilaahay subxaana watacaala uga mahad celiyaa markaan arko caruurteyda, ayaan dhahaa ayay tiri intaan badee maan heleen dhib kasta aan ku hele, noloshuba ha dhib badnaatay, laakiin haddaan sii fadhin lahaa malaha maan heleen caruurtan quruxda badan. markaasaa cod kale wuxuu igu dhahaa bilay markii iska sugtay haddaad heli lahayd nin kaloo ka wanaagsan kan. almuhim waxay tiri waxa keliyaan maskaxdeeda gashtay waxaa weeyaan inay tahay in aan heli karo nin kale oo caruurta ila koriya. waxa keliya oon ku khaldamay ayay tiri mar labaad waxay ahayd in aan heli karo nin kale oo aan ula cararo caruurtan, sababtoo ah guri maan geyn karin aabe oo igu muusan soo dhaweyneyn. ninkii dhalayna wax gacan qabasho ah ama guriga lasii degan oo caruurta ama anaa kugu biilaya halkaa ku hay kamaan helin. maxaan sameeyaa? waxay noqotay in aan dib u daydayo nin kale. markaad daydayaysid qof kale nolosha kula wadaagana waa in aad ihtimaamkii aad u haysay caruurta uu hoos u dhaco. awal baanuun siinaynin ihtimaam jacayl iyo kalgacayl ku dhisan yahay, ayaa haddana dib waxaan u dayacay ilmihii si aan u helo qof kale. waxaan helay qof kale, laakiin wuxuu noqday qof kasii daran qofkii hore. waxaan isweydiiyey talow maanaa laygu imtixaamaya guurka? maxay tahay sidani? keena caruurtii hore caruur kaloo ka badan ayuu iiga sii tegay. maalintan jiray 30 sano ayay tiri waxaan haystay 7 caruura oo labadoodaba aabayaashood iiga dhaqaajiyeen. waxay tiri kaanamaa inaan markaas hurdo ka kacay, markaas baan yaqiinsaday ayay tiri inaan joojiyo qoomamadii iyo maxaan shalay u guursaday iyo haddaan iska dayin lahaa. markaas baan waxaan dhexda u xirtay ayay tiri in aan wax barto,
waxaan ogaaday bay tiri keliya waxa dhibta aan ku jiro iga saari kara inuu yahay inaan anigu dhexda xirto, inaan anigu wax barto. Qofka keliya oo iga saari kara noloshaan iga badbaadin kara inuu aniga yahay. Waxaan isweydiiyaa bay tiri marar badan, maxaa mar hore u garan weyday inaad adigu baahida gurigiina kaa haysatay adigu aad kaafin kartid haddii aad maaragtay ku dadaashid. Maxaan u garan waayay bay tiri maalintii 5 ciyaar lagugu furay adiga ayaa caruurtaadana wuxuu qabsan kara, noloshaadana meel geeyin kara. Haddana dib baan isu xasuusiyey inay qoomamadu ka tahay noloshaydan hadda taagan mamnuuc inaan anigu dhexda xirto, wax barto, ilmahayga iyo nafteedana kor u qaado. Waxay diraysaa fariin, waxay tiri gabar kasta waxaan kula talinayaa in ay iyadu aaminto in ay mashaakilka ay ku jirto iyadu iska saari karto, in aysan nolosheeda aysan mixwar uga dhigin ama aysan u xariiqin oo hoosta uga xariiqin inuu nin ka saari karo, bini aadan la mida iyada inuu ka saari karo dhibta ay ku jirto. Guurku waa nimco, guursada, laakiin waxaad guursataan idinkoo garanaya macnaha guur iyo cidda aad guursanaysaan. Anigu maanta kuma khasaarin guurarkaygii, dhib badan waa maray, wax badanna waa ooyay noloshayda, laakiin waxaan ka bartay bay tiri casharo aanan ilaawi karin. Hadeeraan baraarugay, hadeeraan ogaaday ayay tiri in aan anigu meel iska soo saari karo. Qofka bini aadanka ayay leedahay isaga baa noloshiisa garanaya iyo baahida ay u baahan tahay. Ha ka sugin qof kale inuu gacanta intuu ku qabto uu kaa dabaalsiiyo biyaha aad ku qarqanaysid haddii aadan adigu xaawilin in aad ka dabaalatid. Markaas waa laga yaabaa inaa heshid cid ku saacida, laakiin hadafkaaga ugu horeeya nolosha ha noqdo ayay leedahay inaad adigu noloshaada ku tashatid, inaadna fiiro gaara oo dheer u yeelatid cidda aad guursanaysid iyo sababta aad u guursanaysid iyo macnaha guur wuxuu yahay. Sidoo kale waxay fariin u diraysaa waalidiinta, waxay leedahay sabab ha u noqonina, hana ku khasbinina caruurtiinu in ay galaan nolol noocan oo kaleeta ah iyagoo ka cararaya nolosha gurigooda. Noloshaas waa nolol yar oo dhammaanaysa ayay leedahay. Baahidaadana si kale ayaad uga bixi kartaa adoon ku fikirin in aad kaga baxdid qof kale inuu gacanta ku qabto. Waalidow idinkuna ilmihiina Ilaahay subxaanahu wa tacaala wuu idin weydiinayaa oo waa ammaano Ilaahay subxaanahu wa tacaala idin dhiibtay. Haddii maanta gabadhaadu ay u guursato baahi adigu aad kafayn kartid oo yar darteed oo nolosheeda maaragtay ay halkaas ku weydo ku burburiso, waxay noqonaysaa midaad adigu wax ku leedahay. dembigaas aakhirana waa lagu weydiinayaa. Ilmahaaga Ilaahay subxaanahu wa tacaala sidii uu ku faray inaad u wanaajiso u wanaaji, una cadaalad fal kan hooyadiis dhimatay iyo kay nooshahayba. Sidoo kaleeto hooyooyinka nool oo ilmahooda haysta laakiin ay gabdhahooda u guursanayaan mashaakil ay ka cararayaan dartood, idinkuna gabdhaheena hoos u fiiriya. Waalidow ha ku khasbinina ilmihiina ama gabadhiina inay guursato guur aysan garanayn macnihiisa wuxuu yahay, ama sida ayadoon garanayn xaqa lagu leeyahay iyo midka laga doonayo toona. Hana ku khasbinina gabadhiina in ay lacag uga qaadato nin kale si ay ugu gudato baahiyaheeda gaarka.